waa halaqyada khatarta badan leh waxay ku nool yihiin kaymaha qarada adag ee koonfurta Hindiya isla mar ahaantaasina waa nooc loo yaqaan kubraha waxay dili karaan xayawaanaadka uu ka midka yahay maroodiga iyo libaaxu sidoo kalena waa dilaayo waa mid ka mid ah masaska suntooda ugu khatarta badan tahay adduunyada oo dhan waa mid ka mid ah kuwa noloshoodu tahay mid cajaa'ibka midani waa sheekada kubraha lagu magacaabo Monarch midkaas oo dhex mushaaxaya boqortooyadiisa iyo xadkiisa waaroorii hore markan uu socdaalayo boqorka Barkisana oo ah boqorka masaska kaymaha yaagan oo dhanba waa kaym carasana halkan oo qani ku ah xayawaanaadka yaryar iyo sidoo kale kuwa waaweyn intaba sida boqorka kubraha ee masaska oo kale ayaa xayawaanadu arooriyada hore waxa u jarmaadayaan arsaaqada ibi caleemaha qalalay iyo dheelmashadu dheelmanaya masku waxay badanayaan sanqadha arooriyadan shimbirahana intaas dheer qudunquntada ku caanka yahay dalweynaha Hindiya ayaa waxay quudinaysaa dhalaheeda iyadoo in yar ka dambaysa maska boqorku saaka waxaad moodaa inuu si u degdegayo isagoo jaraya masaafo aad u dheer isla markaba socodkiisu maanta ma aha mid saqar tirasho ah sidoo kale xayawaanaadka aagana ku nool cabsi weyn ayaa soo wajahaysa noloshooda ay u baqayaan feejignaana way muujinayaan shabaqdu waa cadawga ugaarsiga masku waa inuu soo qartirtaa haddii kale xayawaanaadku way dareemayaan sida daanyeerka dhammaantoodna waxay uga digayaan xayawaanada kale kuwooda ugu xooga badan xataa ayay waxyeelayn kartaa sunta kubruhu tanina waxay bixinaysaa macnayaal badan oo ay ka mid tahay hadduu hal fajaase oo kaliya si wacan ula helo maroodiga midaasi waxay ugu filan tahay dilmo tanina waxay iman kartaa oo kaliya mar uu isticmaalayo inuu isku difaaco suntiisa ogow ma ugaarsado masku maroodiga inta badan walina waxa digniinta ku baaqaya oo diraya daanyeerka waxa intaas dheer kubruhu inuu aad u jecel yahay inuu ugaarsado masaska kale balse maanta midaas xataa xiiso uma hayo waxa uu raadinayaa wax kale oo aad muhiim ugu ah